Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Somaliland. Channelka subscribe si videoda like gare kumadna xagga hoose ku qor Somaliland ama Jamhuuriyadda Somaliland. Waa dal ku yaala bariga qaaradda Afrika oo ku yaala geeska qaaradda Afrika. Bari waxaa ka xideeya gacanka Cadmeed, galbeedna waxaa ka xideeya dalka Ethiopia, waqooyina waxaa ka xideeya dalka Djibouti, koonfurna waxaa ka xideeya maamul goboleedka Puntland. Cabirka dalka Somaliland waa 176,120 kiilomitir oo square ah. Tirada dadweynaha ku nool dalka Somaliland sanadkii 2018 wuxuu ahaa 4,500,000. Caasimadda Somaliland iyo magaaladeeda ugu weyn magaceedu waa Hargeysa. Diinta dalka Somaliland boqolkiiba boqol waa Muslim, xagga ay aaminsan yihiin madhabka Sunnida loo yaqaano Shaaficida. Luqadda rasmiga ee dadweynaha Somaliland ku hadlaan waa afka Soomaalida. Lacagta laga isticmaalo dalka Somaliland waxaa loo yaqaanaa shilin. Madaxweynaha dalka Somaliland magaciisu waa Muuse Cabdi Biixi. Dalka Somaliland xorriyadiisii wuxuu kala soo noqday gumaystihii Ingiriiska 1960. Dhaqaalaha dalka Somaliland wuxuu ku dhisan yahay xoolo dhaqatada. Xagga Somaliland caan ku tahay dhoofidda xoolaha. Waxa kale uu ku dhisan yahay dhaqaalaha Somaliland shirkadaha isgaarsiinta. Dalka Somaliland waa dal soo kacaya xagga warshadaha. Waxbarashada dalka Somaliland aad iyo aad ayay u liidataa xagga ay waxbarashadu tahay private. Xagga xukuumadda ama dowladda Somaliland aanay gaarsiinin dadweynaheeda waxbarasho bilaash ah. Caafimaadka dalka Somaliland aad iyo aad ayuu u liitaa xagga dadweynuhu aanay caafimaad ka helin dowladda ama xukuumadda. Xagga dadweynaha ku nool dalka Somaliland ee caafimaad u doontaan dalalka dibadda. Dalka Somaliland wuxuu ka goostay dalka Soomaaliya 1991. Xagga xukuumadda iyo dadweynaha ay ictiraaf u raadiyaan dalka Somaliland. Dalka Somaliland waa dal dimuqraadi ah xagga ay ka dhacday 4 doorasho oo lagu dooranayo madaxweyne. Magaalooyinka ugu waaweyn dalka Somaliland waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa iyo magaalada Berbera iyo magaalada Burco iyo magaalada Boorama iyo magaalada Ceyrgaabo. Xukuumadda iyo dadweynaha dalka Somaliland caan waxay ku yihiin nabadgelyada. Xagga bulshada ku nool dalka Somaliland ee caan ku yihiin hablaha ugu qurux badan qaaradda Afrika. Channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan wuxuu ku rajeynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh. bulshada Somaliland bishaare ma ogtihiin baxsan calankeena iyo warkeeni la baahiye bulshada Somaliland bishaare ma ogtihiin baxsan calankeena iyo warkeeni la baahiye
channelka subscribe sii videoga like gare humadna xagga hoose ku qor